bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa barta aynu youtube-ka ku leenahay ee runsheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa ka mid ah axmed madoobe oo dani dhabarka ka jabiyey iyo mucaaradka oo kala qaybsaday xildhibaanadii labadaasi maamul dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho iyo boqortooyada sacuudiga oo ka walaacsan in maraykanku dhabar jabiyo qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadeen ugu xidhan oo idiin soo gudbin doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadhaan like-na inagu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle saaxiibayaal sida hordhac warkaygaba aad ku daawateen haddaynu ku bilowno axmed madoobe ayaa dani dhabar kaga jabiyey sidoo kale mucaaradka dowladda ayaa kala qaybsaday xildhibaanadii labadaasi maamul taniya markii siciid cabdulaahi deni oo si toosa u sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya waxaa soo baxaya kala qaybsanaan ku imaanaysa xildhibaanadii oo muddooyinkii u dambeeyay ku xisaabtamayay kuwaasoo Jubbaland oo kaga xisaabtamayay axmed madoobe ayaa si toos ah dhabarka u xijiyay siciid cabdulaahi deni kadib markii uu xakameyn waayay xildhibaanadii maamulkiisa ee laga soo doortay Kismaayo sidoo kalena hawada laga soo saaray xildhibaanadii ceel waaq sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah Soomaaliya kor hole sheegay waxa saaxiibayaal saacadba ka dambaysa sii badanaya musharaxiinta isu soo taagaya in ay qabtaan xilka ugu sareeya dalka ee madaxweynaha iyadoo maalmaha inagu soo fool leh la rajaynayo in dalka uu yeesho madaxweyne cusub amaba oo dalka ku soo laabtay madaxweynaha qaranka hadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasiyiinta mucaaradka waxay aaminsan yihiin in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah Soomaaliya uu haysto 100 xildhibaan 20 xildhibaan oo kalena uu heli karo taasoo walwalka ku sii badinaysa musharaxiinta mucaaradka waxaa hadda badanaya walwalka haysta raggii hore loo oran jiray midowga musharaxiinta kuwaasoo hadda midba midka kale u dacaayad ka fidinayo iyagoo isku haysta in ay ka guuleysteen nabad iyo nolol iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah Soomaaliya sida la wada og yahay shan musharax ka badan looma saadaalinayo inuu ku soo baxo xilka ugu sareeya dalka balse waxa uu qof walba fahamsan yahay in ay macquul tahay in qof kale oo siyaasadda Soomaaliya aan horey loogu aqoon inuu ku soo bixi karo xilkaasi madaxtinimo xildhibaanadii uu ku xisaabtamayay siciid cabdulaahi deni kagana xisaabtamayay saaxiibkii ay muddada isla soo jabhadeeyeen axmed madoobe ayaa hadda dhinaca kale musharaxiinta u weecday waxaa sii badanaya siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee isu soo taagaya doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo lagu wada in maalmaha soo socda lagu qabto teendhada afisyoone ee magaalada muqdisho siciid cabdulaahi deni waxa uu ka mid yahay ragga isu soo taagay xilka madaxtinimo isagoo haya xil kale oo dowladeed kaasoo ah maamul goboleedka Puntland waxaa la rajaynayaa guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya inay soo saari doonaan warqad taasoo siciid deni ka hor istaagi kara inuu u tartamo xilka ugu sareeya dalka isagoo xil kala haya haddii kale uu xilkaasi iska wareejiyo amase uu iska caasilo doorashada Soomaaliya ee sanadkan ayaa ah mid aad u adag oo xamaasad badan waxaana doorashada isu soo taagay in ka badan 20 musharax oo ku jiraan kuwo aad saameyntoodu u badan tahay saaxiibayaal mucaaradku waxay fahamsan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in 100 xildhibaan wax ka badan uu ku leeyahay xildhibaanada golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare taasoo rajadooda hoos u dhigaysa sidoo kalena hadda waxay bilaabeen in iyaga dhexdooda ay dacaayado aan macno badan ku fadhin ay iska fidiyaan kuwaasoo qaarkood kaga mashquuleen inay bulshada u soo bandhigaan waxyaabaha ay u hayaan saaxiibayaal waxaa la filayaa in bishan gudaheeda doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay qabsoonto iyadoo taasi ay jidhay siciid cabdulaahi deni iyo axmed madoobe oo kol hore saaxiib ku ahaa inay hagardaamiyaan ummadda Soomaaliyeed sidoo kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah Soomaaliya ay kaga soo horjeestaan wanaag kasta oo sameynaya ayaa hadda dhabarka isxijiyay axmed madoobe waxa uu hadda kuraastiisii iyo xildhibaanadiisii u weeciyay musharaxiinta mucaaradka kadib markii uu ogaaday siciid cabdulaahi deni inuu rajo badan lahayn uu ku tartamo dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan musharaxiinta badan ee isu soo taagay xilka madaxweynaha Soomaaliya damacoodusan ahayn inay xilka helaan sida siciid cabdulaahi deni iyo qaar la mid ah balse ay ka raadinayaan oo kaliya
inay magac ka raadiyaan. Saciid Cabdulaahi Deni ayaa markuu isu soo taagay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya waxa uu mucaaradad badan kala kulmay gudaha dadkii uu maamulayay reer Puntland iyo sidoo kale siyaasiyiintii waaweynaa ee reer Puntland. Culaysyo kaga yimid dhinacaasi ayaa hadda loo badinayaa in uu ku waayay xildhibaanadii deegaanadiisa uu ka soo doortay isagu uu soo xushay. Saaxiibayaal, musharaxiinta loo saadaalinayo ku guuleysiga kursiga madaxweynaha Soomaaliya ayaan ka badnayn ilaa 5 musharax sidaan hore idinla wadaagnay. 5taasi waxa ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, waana tan walwalka ku sii badinaysa midowga musharaxiinta oo hadda kala qaybsamay bilaabayna inay iyagu dacayada iska fidiyaan meeshii ay ku mashquuli lahaayeen inay bulshaweynta Soomaaliyeed la wadaagaan siyaasadahooda. Saciid Cabdulaahi Deni hadda waxa uu wajahayaa dhabarjabin siyaasadeed tii ugu weyneyd maadaama saaxiibkiisii muddada isla soo jabhadeeyeen oo hadda dhabarka ka toogtay. Qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan khasaare ka dhashay iska hor imaad ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac. Israsaaseynta u dhaxaysay askar ka wada tirsan militariga Soomaaliya ayaa ka dhacday xaafadda Tarabuushka ee degmadaasi sida inoo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka. Dhawaaqa rasaas oo muddo kooban socotay ayaa si xoogan looga maqlayay xaafado dhowr ah oo ka tirsan degmada Wadajir iyadoo cabsi ay soo wajahday shacabka ku dhaqan halkaasi. Inta la xaqiijiyay waxaa shaqaaqadan ku dhintay ugu yaraan 2 askari halka ay ku dhaawacmeen 2 kale oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay. Wararka ayaa sheegay in askarta geeriyootay iyo kuwa dhaawacmay ee diriray ay yihiin qaraabo gaar ahaan walaalo ilmo adeer ah sida uu ogaaday Runsheeg TV. Dagaalkan waxa uu yimid kadib muran iyo isqabqabsi ka dhashay guri oo mid ka mid ah askarta dagaalantay uu ka dhisay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka iyo mas'uuliyiinta degmada oo ku aadan dhacdadaasi sababtay dhimashada iyo dhaawaca. Inta badan caasimada ciidamada dawladda ayaa ku dagaalama gudaha caasimada waxaana khasaaraha ugu badan uu soo gaaraa dadka shacabka ee markaasi lagu kor dagaalamay. Qodobada kale aan saaxiibayaal idiin hanana waxaa ka mid ah boqortooyada Saudi Arabia ayaa ka walaacsan in Mareykanku dhabarka xijiyo xilli adag ay ku jiraan. Sacuudiga ayaa dareemaya in Mareykanku uu garabkeeda ka baxay xilli ay wajahayso halis iyo dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta dalka Yemen. Waxaa sidaas yiri madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi ahna xubin ka mid ah boqortooyada. Xiriirka labada dal oo sanado badan xulafo ahaa ayaa liitay tan iyo markii uu xukunka la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyadoo loo sababaynayo dilkii saxafigii reer Sacuudi Jamal Khashoggi ay sarkaal Sacuudiyaan ah u geysteen qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul 2018. Sacuudiga iyo Imaaraadku isku haleynayay dalada amniga Mareykanka ayaa ka caraysan waxay u arkaan hoos u dhig Mareykanku ku sameynayo ballanqaadkiisii gobolka. Safiirkii hore ee Sacuudiga ee Washington Amir Turki ayaa tiriyay go'aano dhowr ah oo qaatay Biden sida inuu joojiyo taageerada Mareykanka ee weerarada ay xulafada Sacuudigu ka wadaan Yemen, in uusan weli la kulmin dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman iyo inuu hagabka difaaca gantaalaha Mareykanka uu mar kala baxay Sacuudiga. Si kastaba Mareykanka ayaa bilihii dhawaa sare u qaaday taageerada military ee uu siinayo Riyadh si loo hagaajiyo xiriirka Riyadh sida ay sheegeen diblomaasiyiin reer galbeed. Amir Turki ayaa wax xil ah iminka ka haynin dowladda Sacuudiga hase yeeshee weli waa nin saameyn leh isagoo oo gudoomiyaha xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka islaamiga ah ee Boqor Faysal. waag saaxiibayaal inta saan kusoo gabagabeynaa warkii aad ka daawanaysaan Runsheeg TV. Alla nadii aad ugu cusubtiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa subscribe noo saadaan, like na inugu dhiirigelisaan gamaaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka leh.